shirkaas oo insha Allah lagu dejin doono qorshayaasha mustaqbalka jabhadda la iskuna warsanayo ama lagu xisaabtamayo wixii hawlaha ee hore loo soo qabtay habka uu qabsoomeen laguna sixi doono wixii dhaliilaha ee hore u dhacay si looga faa'iideysto mustaqbalka soo socda aad iyo aad baa shirkan aan uga qabnaa yididiilo weyn maxaa yeelay shirkan waxaa weeye waa shirkii koowaad jabhadda wadaniga Xoraynta Ogadenia ama guddigeeda fulinta ay dalka gudihiisa ku qabsadeen dalkii oo nabad lagu qabtay way jireen shirarkii hore in dalka gudihiisa lagu qaban jiray qaar ka mid ah hase yeeshee waxaa dhici jirtay in shirarka oo socda marar fara badan ay dagaalla dhici jireen shirkan waxaa insha Allah uu yahay shirkii dalka oo nabada ama jabhadda xaaladeeda oo nabada dalka gudihiisa lagu qabtay waxaan rajaynaynaa inaanu sida ugu habboon shacbiga yaga iyo ummadayada danta u ah ama halgankayagii mustaqbalkiisa danta u ah inaanu kala fadhigno ama shirkanaanu kaga hadalno aan kaga hadalno si aad iyo aad ayaan mataqaanaa uga baaraandegi doonaa hawlahana horyaala ee waaweyn dhinac walbale muddo dheer buu jabhadda wadaniga Xoraynta Ogadenia ay soo halgamaysay waxay u soo halgamaysay intii dalkeeda oo nabad oo gacan gumaysi ka xor ah in ay mataqaanaa ay gaarsiiso heerkaas runtii aad baan u jecelahay in aanu ummadayada maslaxadeeda meesha ugu fiicnay inaanu gaarsiino yaan aad iyo aad u jecelahay taasaanu qorshaynaynaa ilaa hadda xaaladayadiina waxba iskama bedelin tii awal hore ama qorshihii awal hore aanu ku soconay yaanu weli ku soconnaa sidii ugu soconnaa taasna waxa weeye ummadayada danteeda inaanu mar walba ka shaqayno oonu ka talino oonu qorshayno oo aanu fulino sida ugu habboon aanu ugu soconno xilkaasa in horyaala haddaynu nahay golihii dhexe ee jabhadda wadaniga Xoraynta Ogadenia aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa inoo furma maalmaha soo socda waxaa inoo furmi doona haddii alla yidhaahdo shirweynaha qaybtiisii labaad oo ah xubnaha ay yani kulamadii ay ka soo qayb geli lahaayeen laakiin kulankan yaa wuxuu runtii u yahay shirweynaha hawlihiisa saldhig u ah waxaan idinka codsanayaa inaad sida ugu habboon ugu degan ugu macquulsan aad hawlihiina halkan yani aad ugu qorshaysaan wixii dhammaan insha Allah waynu israaci doonaa shirkii ama shirweynihii shan afraad ee jabhadda wadaniga Xoraynta Ogadenia waa furan yahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inaynu guul iyo nabad